maalintii labaad waxaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ahna xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka soconaya shirka madasha wada tashiga qaran waxaana shirka ku soo biiray wafdi ka socda beesha caalamka oo horkacayay argeyga gaarka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mr Michael Keating waxaana ay ka qayb galeen shirka madasha wada tashiga qaran ee magaalada Baydhabo ka soconaya ka hor inta aanay shirka ka qayb galin waxa ay kulamo gaargaar la qaateen madaxda Soomaalida oo ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud kulamadoodu markii soo ilaadana waxa warfadiyeenka si wada jir u la hadlay Michael Keating oo qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud صاحبنا beesha caalamka oo safiiro iyo wakiilka xogeeyaha waxaan aad iyo aad uga wada hadalnay sida loo fududeynayo ama ay tartiib oo qurux badan u dhamaan arrinta doorashooyinka iyo doorka oo ay ka qaadan karaan beesha caalamka ee taageerada oo ay sidii doorashooyin sax ay u dhici lahaayeen maanta waxaan kala hadalnay saaxiibadeena beesha caalamka arrintaas waan isla garanay mabaadi'da guud ee shaqada inay socoto maalmaha soo socdana shaqooyin badan ayaa ayagana qabsoomi doona waxaan isla garanay waqtigii doorashada loogu talagalay sidiisi inuu ahaado oo aanay waxba iska bedelin. I'm here with the representatives of the international community, including from the African Union, IGAD, the European Union, Italy, Sweden, the United Kingdom, the United States, Kenya, Uganda, Turkey, and Ethiopia. And representing other partners who could not be here today. We are here to be briefed by the National Leadership Forum, His Excellency the President, and his colleagues on discussions around the electoral process. sidoo kale shirka oo maalintii labaad ka socda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxa maanta looga hadlay arrimo fara badan oo ay ka mid tahay hirsaamiga haweenka ay ku leeyihiin hoggaanka dalka Soomaaliya waxaana goobta ka hadlay wasiirada haweenka iyo xuquuqul insaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Marwe Sahra Cali Samatar iyo waliba sidoo kale caashigii la diiriyay oo ka mid ah haweenka ugu firfircoon ee dalka Soomaaliya waxaana dhamaantood ay ku dheeraadeen in muhiimad ay tahay in saamiga haweenka si rasmi ah loo shaaciyo. horta maanta waxaan aad ugu faraxsanahay in si gooni ah looga hadlaayo kooxda haweenka in ay maanta heleen qadiran gooni ah waxaan rabaa inaan halkaan ku xuso iguna mahadceliyo madaxda qaranka dadaalka dheeraa ee la soo galeen ay soo garab istaageen in haweenka maanta ay helaan xubintooda isbeddelkan siyaasadeed ee maanta dhacayo iyo doorashada la gelayo. maadaama laba kun iyo labaatan ay soo socdaan waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliya xasuusiyo maadaama sanadka 2020 ay soo socdaan doorashooyin qof iyo codkiisa in aan madasha qaran aan xasuusiyo iyo ragaba in haweenka Soomaaliyeed ay bulshada ka yihiin in ka badan 100%. xilli aan fogeyn baa la gaari doonaa doorasho madax bannaan oo qof iyo codkiisa loona baahan doono codka gabdhaha Soomaaliyeed. waxaan leenahay inaad maanta u hiilisaan waxay muhiim u tahay mustaqbalkeena inaad doorasho heshaan. taasina waqtigeeda ku sihaysan ayaan jeclaanahay. danjirayaal ahaan waxaan boqolkiiba boqol ka rajeynaa madaxda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo aan codsiyo kala gaar ka codsanay in ay danjirayaasha iyo haweenka Soomaaliyeed ku soo saari doonaan go'aamada madashan Baydhabo waxyaabaha aan ka codsanay oo in bannaanka la iska dhigo kuraasaas gabdhaha wax badan la guudsiiyey. intaa kadib waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud asigoona dul istaagay qodobada ay soo bandhigeen wasiirada haweenka iyo waliba Marwe caashigii la diiriyay. mar badan waa rabitaan siyaasadeed oo aan ka jiro in gabdhaha Soomaaliyeed ay qaybta ay ku leeyihiin masalada dhinaca siyaasadda ka qayb
leeyihiin dhinaca siyaasadana dadaalkeedu waa socdaa waana gaarigaariga waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo madasha arrintan aad iyo aad ay u qaadashay rabitaan la'aan ku saabsan rabitaan la'aan siyaasadeed oo madasha xaggeedu ka jirtahay ma jirto laakiin dee caqabadaha kulligan aan wada garanayno oo dhaqankeena qadiimiga ahaa ee soo jireenka ahaa qaarkiis uu wato ayaa meesha ka jira ayadaasna waxaan u baahannahay si wada jir ah inaan muxuu ahay aan ku wajahno oo aan uga wada istaagno aadan xasan cusmaan adegeysay Somali Cable TV Baydhabo